Weli ma aragtay nin dhalinyaro maqaayad fadhiya, nin dhalinyaro fadhi ku dirir ku jiro, nin dhalinyaro qabyaalad iyo qurun ka sheekeynaya horumar gaar weli ma aragtay. Go'aana qaado, yoolal degso, qorshe samayso. Waxaa la yiraahdaa daily ma aragtay schedule samayso, jadwal nololeed samayso. Waqtigaaga maaray. Waqtiga waxa weeye maanta ma soo laabanayo. Dhalinyaronimada ma lagugu celi karo. Hadday ku dhaafto way ku dhaaftay. Shalay way ku dhaaftay. Wixii aad saxday waad saxday, wixii aad qalatay waad qalatay, way ku dhaaftay. Ma soo laabanayso. Shalayto haddii aad shalaynayso waxaad shalay doontaa maalintaad 60 gaartid ayaad shalaynaysaa. Yaad leedahay dhallinyaranimadeydii waxba ma qabsan. Dhallinyaranimadeydii balwadaa isku dhiibay. Dhallinyaranimadeydii wax ma baranin. Yacni markaasaad qalbigay ka gubanaysaa. Qaadi kartana ma jirto, cid dib u celi kartana ma jirto. Adduunyada intii lagu siiyo waqtigii lagu siiyo wuu dhammaaday. Ila socotaa? Marka saaxiib waqtiga ka faa'iidayso. Assalaamu calaykum. Galab wanaagsan. Waxaan kuu rajaynaa inay galab qurux badan kuu tahay. Muuqaalkan waa muuqaal yar oo kooban. Waa muuqaal yar oo aan ugu talagalay in aan haddaan dhalinyaro nahay aan wax isku sheegno ama aan kaga faa'iidaysano waqtigeena dhallinyaranimadeena. Saakay waxaa laga yaabaa inaad shaqo tagtay. Sidoo kale waxaa laga yaabaa inaad waxbarasho tagtay. Markaad shaqada ka soo baxday ilaa iyo inta qorax ka dhacay ama waxbarashada markaad ka soo baxday ilaa iyo qoraxa uu ka dhacayo waxaa ku dhex jira saacado aad u fara badan. Waddamada reer galbeedka dadka ku nool caadiyan 8 saacadood ayay shaqeeyaan. Dalka marka la joogo hadduusan qofka business lahayn waxaa laga yaabaa inuu asagana sidoo kale saacado kala shaqeeyo. Intaa iyo waxa adigu ilaa iyo 10 saacadood. Waayo 8 subaxnimo ayay businessyada qaar furmaan. Businessyada qaarna galbihii waxay furmaan 9. Businessyada qaarna 7 subaxnimo. Marka hadba waxay ku xiran tahay marka kambaniga iyo dadka la shaqaynaysid iyo waxyaabaha markaasi saacadaha marka ay ku xisaabtamaan. Adigu maalintii waa soo shaqaysatay ama waxbaad soo baratay. Waxaad soo baro ama soo shaqeey galabtii maxaad qabataa marka? Su'aashaas. Galabtii waxaa laga yaabaa in aad fadhi ku dirir ama in aad maxaa la yiraahdaa waxyaabo madadaalo ah inaad waqti ku dhumisid. Haba u badnaadaan dhalinyarada qurbaha ku nool oo markay qaarkood shaqada ka soo baxaan ay ku qaataan inay maqaayadaha iyo qabyaaladii waxyaabaha aan wanaagsaneyn ay meesha waqti ku dhumiyaan. Haddii kale waxaa laga yaabaa in sidoo kale uu TV-ga hor fadhiisto. Markuu shaqada ka soo baxo kadib markaa TV-gu shitay ilaa qoraxa uu ka dhaco ku daawado hadday noqoto cayaar iyo hadday noqoto waxyaabo kale iyo musalla ama filimaan. Waxaa jirta warbixin aan ka akhriyey buug ka mid ah buugaagtii aan akhriyey 2024 oo halkaa ii saaran. Buugga waxaa qoray nin la yiraahdo Cal Newport nin la yiraahdo. Waa deep book buugga loogu magac daray. Qoraaga wuxuu soo xiganayaa baaritaano ay sameeyeen qolyaha bixiya aqoonsiyada ama shatiyada telefishinada dalka Ingiriiska. Warbixinta waxay leedahay ama baaritaanada ay sameeyeen waxay leedahay dhalinyarada u dhaxaysa da'dooda 24 ilaa iyo 35 jir waxay toddobaadkii ku bixiyaan daawashada TV-yada saacad u dhiganta 15 daqiiqo 15 saacadood toddobaadkii ayay
ay ku dhumiyaan. Een, taa oo run ahaantii 15 saacadood markii aad maalintii aad saacad wax ka baratid, saacad aad jiimka tagto, jirkaada dhistid, ama wax jirkaaga ama maskaxdaada kobcinaya aad ku dhumisid, dabcan waad faa'iidaysaa. Laakiin waxyaabo markaasi aan waxba aadan ka faa'iideynin sida hadda filimaantoo kale, aflaantoo kale, musalladoo kale, ciyaarahoo kale, waxaa laga yaabaa in aadan waxba ka faa'idin. Balse haddii saacad ka mid ah maalintaada aad ku dhumisid inaad wax akhrisid, inaad buugaag akhrisid, inaad quraan akhrisid, inaad koorso online aad qaadatid, yacni waa saacad aan kaa khasaarin. Waa saacad markaasi aad wax badan noloshaada ka beddeli kartid. Sidoo kale waxaa jira dad markay 8 saacadood ay shaqada soo dhammeeyaan, gala shaqooyin kale, ama ha noqoto shaqooyin ay u madax bannaan yihiin ama ha noqoto shaqooyinka side hustle-ka loo yaqaano, inay qabtaan si markaasi ay kaga faa'iidaan. Marka adiga dhalinyarada ah ee qurbaha ku nool, aan ognahay in dhalinyarada qurbaha maahan waddamada reer galbeedka, Africa, Asia, meel walba aad ku nooshahay waa qurba haddii dalkaada aad ka soo baxdid. Marka dhalinyarada ku nool wakhtiga faraha badan ay ku dhuminayaan waxyaabaha malayacniga ah, haddii uu kaga faa'iidaysto waxyaabo manaafacaad u leh, waxyaabo uu ka faa'iiday, waxyaabo mustaqbalkiisa u dhisaayo, dee waxay noqonaysaa in qofkaasi uu nolosha ka guul gaaro, uu mustaqbalkiisa noqdo mustaqbal qurux badan. Mawduucan aan kula wadaago waxyaabaha keena waxaa horta ka mid ah dhalinyarada qurbaha ku nool aan aad u aqaana maadaama anigu qurbahan ku noolahay, inay badanaa ku qaataan waqtiyadooda meelaha dadka isugu yimaadaan, inay meelaha maaragta waqtiga ay ku dhumiyaan ay ka mid tahay maqaayadaha iyo waxyaabo naftooda iyo shakhsiyadooda aan horumarinaynin. Marka haddii aad dhalinyaro tahay, qurbaha aad ku nooshahay ama dalka aad ku nooshahay, maalintii 1 saacadood geli naftaada. Haddii aadan geli karin in ka badan naftaada, saacad oo keliya maalintii geli naftaada. Saacaddaa waxaad u qaybisaa 3 ama 4 ama 20 daqiiqo u qaybi. Tusaaloo kale 20 daqiiqo inaad wax akhrisid, buug markaasi faa'iido u leh naftaada inaad akhrisid, 30 daqiiqo inaad hal juz aad ku akhrisid, in 20 daqiiqo aad jimicsi samaysid. Waxyaabahaas yaryar naftaada way horumarinayaan. Laakiin haddii naftaada aad social media markaad shaqada ka soo baxid telefishinka hor fadhiisatid, aad maantao dhan mobile ku mashquulsan tahay, social media, qabyaaladda, TikTok-ga, waxyaabahaas aad ku mashquulsan tahay, naftaada ma dhismayso, shakhsiyaddaada isma beddelayso, meeshaad taagan tahay kama dhaqaaqaysid. Dhalinyaro badan isbeddel way raadiyaan. Waxaa laga yaabaa inaad isweydiisid maxay tahay sababtaad isku beddeli laadahay? Maxay tahay waxyaabaha horumar aad u gaari laadahay? Waa caadooyinkaaga ayaa mustaqbalkaaga maaragtay u ah waddo u ah. Caadooyinka aad maalinlaha u samaysid ayaa mustaqbalkaaga iftiiminaya qofkaad noqonaysid. Marka haddii aad dhalinyaro tahay meeshaad doontid ku sugnow, waqtiga ugu fiican ayaad ku jirtaa. Ma jiro waqti ka fiican waqtiga dhalinyarada. Marka naftaada horumari, xirfadahaaga dhis, wax baro, wax akhri, jimicsi sameey. Waxyaabahaas way ku horumarinayaan. Inaad isdhahdaa laga yaabaa waxaan waa sameeyaa, waxaan waa yeelaa. Laakiin isbeddel isbeddel nafteeda kuma dhacayo. Isbeddel ma yimaado ilaa qofka isagu isbeddelo. Isbeddel ma yimaado. Marka isbeddel waxyaabaha yaryar naftaada way dhisayaan, shakhsiyaddaada way beddelayaan. Ogow in aad maanka ku haysid inaad isbeddeshid.
Tusaaloo kale anigu waan almiiteeyaa, wax baan akhriyaa, kan baan yeelaa, kan baan yeelaa, haddana isbeddel ma dareemayo. Kuma hayi maankeyga kuma hayi, maskaxdeyda kuma jirto inaan isbeddel sameeyo, laakiin wixii waan sameeyaa. Marka maanka gasho, maskaxda geli inaad isbeddeshid, yacni sanadkan sanadka soo socda waan ka fiicnaanayaa. Sanadka soo socda sidan waan ka fiicnaanayaa. Jirkeyga waan dhisayaa, buugaag badanaa akhrinayaa, xiriiradeyda waan kobcinayaa. Waxyaabahaas yacni way ku hormarinayaan saaxiib, yah. Marka haddaad dhalinyaro tahay ka faa'iidayso. Anigu lagama yaabo inaan maqaayad fadhiisto. Saaxiibadeyda hadda waxay ku soo aruureen telefoonay ku soo aruureen. Ma lihi saaxiib maanta aan inta isqabanno, meel wada tagno, maqaayad fadhiisano, wada sheekaysano ma lihi. 2023 ayaan go'aan ka gaaray. 2023 ilaa iyo hadda maqaayad aan fadhiistay aan ku shaaheeyey 10 daqiiqo ka badan u malayn maayo inay iga gashay, yah. Yacni sababtaasna maahan inaan saaxiibo necbanahay, sababtaas maahan inaan dadka necbanahay, laakiin wax aan faa'iido ka helaynin, inaan waqtigeyga ku dhumin ayaan ka doorbiday. Inaan waqti ku qaato gurigeyga iyo halkan aad ujeedid waxa dhinacyadeeda yaal ma malayn kartid. Sanad waliba buugaagaan iibsadaa, buugaagaan akhriyaa, onlinekaasaan waxaan ka bartaa. Yacni waxyaabahaasaa horumaraan ka dareemaya. 2023 yacni maalintaas go'aankan qaatay ayaa isbeddelo badan Ilaahay uu maaragtay ii fududeeyey, Ilaahayna igu guuleeyey inay noloshayda isbeddesho. Marka qofki isagaa isbeddeli kara, isagaa isbeddeli kara. Dhammaan saaxiibadeyda anigu telefoonaan ku wada xiriirnaa, waan is wacnaa, weekendiyaan sheekaysanaa, waqti wada qaadanaa, iska warqabnaa. We are good friends, saaxiibo wanaagsan aan nahay. Iyagana waxaan u rajaynaa inay taasoo kale ay sameeyaan. Ay mustaqbalkooda dhisaan, ay ka faa'iidaystaan. Maahan keliya inaan nafteeda mustaqbal la rabo, nolosheedoo keliya inaan dhiso. Maahan, waa in saaxiibadeydan aan arko horumarkooda, waa inaan arko saaxiibadeyda. Marka haddaad dhalinyaro tahay ka faa'iidayso. Haddaad dhalinyaro tahay waqtigaaga maaray. Waqtiga waxa weeye maanta ma soo laabanayo. Dhalinyaronimada ma lagugu celi karo. Hadday ku dhaafto way ku dhaaftay. Shalay way ku dhaaftay. Wixii aad saxday waad saxday, wixii aad qaladday waad qaladday, way ku dhaaftay. Ma soo laabanayso. Shalayto haddii aad shalaynayso, waxaad shalay doontaa maalintaad 60 gaartid ayaad shalaynaysaa. Yaad leedahay dhallinyaranimadeydii waxba ma qabsan. Dhallinyaranimadeydii balwadaa isku dhiibay. Dhallinyaranimadeydii wax ma baranin. Yacni markaasaad qalbigay ka gubanaysaa. Qaadi kartana ma jirto, cid dib kuu celin kartana ma jirto. Adduunyada intii lagu siiyey, waqtigii lagu siiyey wuu dhammaaday. Ma ila socotaa? Marka saaxiib waqtiga ka faa'iidayso. Shalay haddaad 20 jir ahayd, 2024, this year 25, 25 jir, next year 26. Dan marka waxa weeye waqtiga wuu dhammaanayaa. Marka ka faa'iidayso, naftaada wax bar, naftaada wax bar, la fadhiisa naftaada, go'aano qaado, yoolal degso, qorshe samayso. Waxaa la yiraahdaa daily ma aragtay schedule samayso, jadwal nololeed samayso. Ninka dhalinyarada hadduusan jadwal maalmeed lahayn horumar ma gaarayo. Waa xaqiiq, horumar ma gaarayo. Weli ma aragtay nin dhalinyaro maqaayad fadhiya, nin dhalinyaro fadhi ku dirir ku jiro, nin dhalinyaro qabyaalad iyo qurun ka sheekeynaya horumar gaari weli ma aragtay. Dabcan waxaa laga yaabaa in maanta dad aad role model ay ku yihiin, in dad social media role model ay ku yihiin, laakiin exactly ma ogid wax ay ku nool yihiin. Kaamiradan inta lasoo hor fadhiistaa wixii doono la sheegi karaa. Inta lasoo labista labiska ugu qaalisanaa la xiran karaa, laakiin noloshooda ma ogaa kartid. Role model inay ku yihiin aa laga yaabaa. Marka naftaada dhis. Dadka wanaagsan role model ka dhigo, wax baro, xirfado baro, aqoon yeelo. Marka saaxiib intaasaan jeclaysan inaan kula wadaago. Dabcan hadduu muuqaalkan dheeraado, waxa dheereeye maahan anigu maaha, laakiin waxa dheereeye waa topica, waa mawduuca ayaa dheereeye. Saaxiib haddaa halkan soo gaarto waxaan kuu rajaynayaa inaad mustaqbalkaaga dhistid.
halkan aad saaxiibadaada ku xasuuntid nagula soo biiri saaxiib. Waxaan kaaga tegayaa galab wanaagsan mar kale.